ma kula tahay inaan ka aamusayo adigoo imtixaan diyaarinaya آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل ومذكرات في الحياة منها ارتوى جيل فجيل آمالنا نهرا تسيل. السلام عليكم وأدكم عصام تاي داوشة فيديو كان كسر دو برنامج كه نور العصب magacay waa Yuusuf Sakiin waan ogahay intiina badan waxaad diyaarinaysan imtixaan soo sidaas ma ahan hadaba ima suurtoobayso inay idinka aamuso idinkoo imtixaan diyaarinaya darteeda maanta waxaan kula wadaagi doonaa nasteexooyinka ugu muhiimsan maalinta imtixaanka haddii aad nasteexooyinkan ku dabaqdi nafsadaada oona ku socotid waxaan ku damaana qaadayaa inaad imtixaankan ka gali doontid kaalinta koowaad baroge adiga ayaa arki doonaa hadaba soo qaado qalin iyo warqad kadibna ku qoro nasteexooyinka aan ku sheegi doono kadibna ku dhajiso darbiga qolkaaga si aad u fiirisid maalin walba uguna socotid maalin walba kadibna imtixaanka marka uu dhamaado oo natiijada ay soo baxdo oo noqotid kaalinta koowaad isoo sheeg si aan farxadda kula qaybsado hadaba maxay yihiin nasteexooyinkan nasteexooyinkan waa 10 nasteexo كو كدرك هرد فيعان هذا مهم متهمدا ولياغا هدفرن اديغو دفرسن امتحانها عادي اسكا الى ميدان هدابا برياد امتحان لهداهي عاو si fiican u seexo كدرك هرد فيعان maanta bari marka imtixaan leedahay maanta oo dhan wax akhri ilaa laga gaar caawo 6 saac ama 12 marka la gaaro markaas seexo kadib markaas seexatid waxaad soo kacaysaa 5 subaxnimo kadibna tuko salaada subax kadibna waxaad sameynaysaa nasteexada labaad dulmar hadda waxaad dulmaraysaa maadadii aad soo khulaasaysay waxaan soo sheegnay فيديو بدن oo uga soo hadalnay sida loo diyaariyo imtixaanka sida loo mudaakireeyo waxaanu ku soo sheegnay in marka aad maadada akhrinaysid ay khasab tahay in agtaada u yaalo buug kale buugaas oo aad ku qoranaysid waxyaabaha ugu muhiimsan fikradaha ugu muhiimsan ee maadada buugan waa summary waa khulaasad waxaad ku khulaasaynaysaa maadada asalka ah hadaba hadda adiga waa soo kacday salaada ay tukatay hadda waxaad dul maraysaa muraajaco ku sameynaysaa maadadaas buugi khulaasada aha ayaad akhrinaysaa ma akhrinaysid buug weyna oo dhan hadda kama gaarisid buugaas inaad akhrisid hadda adiga waxaad rabtaa bas fikradaha ugu muhiimsan inaad maskaxdaada ku keensatid hadaba dulmar buugi yara ee aad khulaasada ku soo samaysatay samriga ku soo samaysatay nasteexada saddexaad cunto fudud hadda ha iska buuxinin canjeero iska buuxin cunto badan hadda waa inaad wax yar cuntaa tusaale ahaan waxaad samaysataa ukun kadib waxaad ku cuntaa laba xabo rooti ah iska ilaali in imtixaanka aadid adiga oo gaajaysan iska ilaali in imtixaanka aadid adiga oo gaajaysan wiligaaga ha bixin imtixaan hankinado gaajaysan waan ogahay aniga hataa waaga imtixaanka gali jiray waan bixi jiray waayo nafis uma hayaan wax ku cuno waa run soo sidaas ma hadaba sameeyeen midaas ma wanaagsana wax un laakiin wax badan ha isku buuxineen wax yar cun khudaar ukun rooti wax sidaas cun oo fudud nasteexada afraad sawiro guul aad ay muhiim u tahay fiiri ka waran qofkeena hadii ka hor inta uusan maadada u fadhiisanba uu kula hadlayo nafsadiisa hadalo niyad jab ah hadalo guul dara ah hadalo walwal iyo stress ku abuuraya tusaale ahaan ka waran hadii qofkeena uu nafsadiisa ku leeyahay wallahi aniga maadadan way ugu adag tahay maadada way ugu soo noqon doontaa maadadan kuma baasi doono waaqana waxaan sameynayo maanta oo sidaas imtixaan ku gala natiijadu waxay noqonaysaa wuxuu u sawirtay hadaba aad ay muhiim u tahay inaad sawiratid guul sawiro sida adiga oo maadadan ka keenay darajada ugu sareysa ha hilmaamin hadalkeena wuxuu saameynayaa fikirkeena wuxuu saameynayaa nolosheena aad uga taxadir hadalada aad kula hadlaysid nafsadaada kula hadalo gelina hadalo guul ah ka soo qaad sidii adiga oo maadadan ku baasay gal imtixaanka u fadhiiso adiga oo faraxsan sidii adiga oo ku baasay natiijadaada arkay
nasteexada shanaad hubkaaga hore u qaado hubka ardaygu waa qalimaantiisa waa tirtirayaashiisa waa mastaradihiisa haddaba weligaaga ha iloobin inaad hore u qaadatid hubkaaga diyaar ha ku ahaado uma baahnid adiga hadhow adigoo ka shaqeynaya imtixaanka marka uu ka istaago qalinkaaga inaad qof kale weydiisid oo ku tiraadid qalin dheeriya ma haysaa qalin dheeriya ma siin karta uma baahnid adiga inaad maskaxdaada wax kale ku mashquulisid haddaba aad ay muhiim u tahay inaad hubkaaga sidatid sidoo hubkaagana waa qalimaantaada mastaradahaaga tirtirayaashaada waxaasoo dhan waa inaad diyaar ku ahaadaan oo ay hortaada yaaliin haddii qalin ka istaago mid kale la soo bax markiiba adigoo maskaxdaadana wax kale ku mashquulinin isla markiiba hore u sii wad inaad ka shaqeysid su'aasha haddaba aad ay muhiim u tahay in marka horeba gurigaaga ka soo qaadatid hubkaaga oo dhan si aadan marnaba wax kale ugu mashquulin si aadan marnaba ugu baahanin inaad maskaxdaada meel kale ku mashquulisid nasteexada lixaad aad iskuulka ama jaamacadda xilli hore aad ay muhiim u tahay inaad joogtid iskuulkaaga ama jaamacadaada ka hor imtixaanka ugu yaraan nus saac midaan waxay kuga caawinaysaa inaad horta jawigaasi la qabsatid inaad deganaatid inaad diyaarsatid boos fiican oo imtixaanka warqada lagu keeno adiga oo diyaar ah balse ka waran haddii aad soo daadid oo aad timaadid iyadoo mar hore fasalkii la buuxiyey boosaskii la wada fadhiistay oo imtixaankii la bilaabay haddii aad soo gashid maxaad dareemaysaa walwal markaas ayuuba kugu bilaabanaya stresska markaas ayaad bilaabaysaa inaad ka walbahaartid horta marka hore waxaad bilaabaysaa inaad maskaxdaada mashquulisid waxaad raadinaysaa boos aad fadhiisatid soo ma ahan walwalka ayaad isku abuuraysaa haddaba aad ay muhiim u tahay inaad meesha joogtidba ka hor intaan warqadaha imtixaanka la keenin nasteexada toddobaad soo booqo musqusha aad ay muhiim u tahay mid ah dhaliilsanin adiga uma baahnid inaad wax kale maskaxdaada ku mashquulisid uma baahnid inaad hodhow marka aad ka shaqaynaysid su'aalaha oo ay sheekadu meel fiican ku marayso inaad wax kale ka fikirtid inaad wax kale ka walbahaartid saa darteeda marka horeba faadi iska soo dhig fadhiiso adigoo diyaar ah oo aanan ka walbahaaraynin ka fikiraynin waxyaabo kale haddaba markaad meesha tagtidba soo booqo waxa ugu horeeya aad ku bilaabaysid ka dhig inaad soo booqatid musqusha kadibna fadhiisatid adigoo aanan wax kale ka walbahaaraynin adigoo aanan wax kale ka fikiraynin nasteexada sideedaad isdeji hadda adiga uma baahnid inaad walbahaartid uma baahnid inaad stress ku abuurtid isdeji noqo qof degan wixii la sameynay waa soo sameysay waa soo dadaashay imtixaankaaga si fiican ayaa u soo diyaarisay hadda alla subxaanahu wa tacaala marna lagama yaabo dadaalkaagii inuu meel cidla kaaga dayaco haddaba waa inaad alle ku kalsoonaataa nafsadaadana ku kalsoonaataa oona walbahaar iyo welwel oo dhan meel iska geysid nasteexada sagaalaad muuji kalsooni aad ay muhiim u tahay in jirkaaga oo dhan adiga oo dhan ay ka muuqato kalsooni aan caadi ahayn inaad doolla cadaysid inaad ku kalsoon tahay alle subxaanahu wa tacaala inaad ku kalsoon tahay aqoontaada inaad ku kalsoon tahay dadaalkii aad soo bixisay haddaba muuji kalsooni ogowna inaad maadadan ka keenaysid darajada ugu sareysa nasteexada tobnaad dib ha fiirinin uma baahnid adiga hadda inaad dib fiirisid maadadan aad soo gashay imtixaankeeda way ku daysay mac salaama uma baahnid inaad hadda ka walbahaartid fiiri qofkeena marka uu dib u fiirinayo marka uu ku noqonayo su'aalihii uu ka soo shaqeeyay marka uu dib u fiiriyo warqadii su'aalihii uu ka soo shaqeeyay hadda waxaa laga yaabaa inuu arko meelo uu ka soo shaqeeyay oo aanan ahayn in sidaas looga soo shaqeeyo haddaba midaan maxay ku abuuraysaa kalsooni daro adiga uma baahnid hadda inaad kalsooni daro isku abuurtid hadda adiga muhiimadaadu waxay tahay inaad ka fikirtid oo aad diiradda saartid midda ku sugaysa maadadan ku sugaysa haddaba dib ha fiirinin way ku daysay midaas way baxday insha Allah waad ku guuleysan doontaa ha ka walbahaarin warqada iska laablaab meel dhigo soo qaado maadada cusub midaasna bilow sida u diyaarin lahayd ee weligaaga dib ha ugu noqonin maada aad ka soo shaqaysay
intaan waa 10 nasteexo oo aan ku kalsoonahay boqolkiiba boqol haddii aad ku dabaqid nafsadaada oona ku socotid inaad imtixaankan ka gali doontid kaalinta koowaad. haddaba ku noolow nolol farxad leh, nolol jecel leh, nolol cusub. aad ayaad u mahadsantahay. افرض وجودك في الحياة وكن كما وقع المطر وانثر حروفك في السماء نورا كما ضوء القمر بالعزم هيا نمضي سويا نسمو ونرقى فوق الثريا. ma kula tahay inaan ka aamusayo adigoo imtixaan diyaarinaya؟ آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل ومذكرات في الحياة منها ارتوى جيل فجيل. آمالنا نهرا تسيل. السلام عليكم. waad ku mahadsantahay daawashada videogan. ku soo dhawow barnaamijka nolol cusub. magacay waa Yuusuf Sakiin. waan ogahay intiina badan waxaad diyaarinayseen imtixaan soo sidaas ma ahan. haddaba ima suurtoobayso inay idinka aamuso idinkoo imtixaan diyaarinaya. saa darteeda maanta waxaan kula wadaagi doonaa nasteexooyinka ugu muhiimsan maalinta imtixaanka. haddii aad nasteexooyinkan ku dabaqdi nafsadaada oona ku socotid waxaan ku damaana qaadayaa inaad imtixaankan ka gali doontid kaalinta koowaad. baroge adiga ayaa arki doonaa. haddaba soo qaado qalin iyo warqad kadibna ku qoro